Filimkeenna waxa uu ka bilowmayaa nin faqiir ah oo lagu magacaabo Virgil oo ku safraya tareen isagoo u socda shaqo uu ka helay shirkad, taasoo ka shaqaynaysa meel aad uga fog oo saxaro go'doon ah. ka hor inta aan gudagelin barnaamijka like saar page-keena oo share garee fiidiyowga sidoo kale hala noqo saaxiib dhow si aad u hesho macluumaad fara badan. Kadib tareenkii waxa uu istaagayaa mid ka mid ah isteeshinada uu maro. Kadib Virgil waxa uu arkayaa jawiga oo aad u kulul iyo meesha inay lama degaan tahay. Waxa uuna helayaa gaari, waxa uuna kala heshiinayaa lacagta uu ku raacayo. Kadib waa uu raacayaa si uu u gaadho meesha uu rabo isagu. Marka ay bartanka marayaan ayuu ku odhanayaa ninkii gaariga lacag ka badan midii ay ku heshiiyeen bilowgii. Haddii kale uu halka lama degaanka ku dejinayo. Kadib wuu aqbalayaa Virgil waayo kuma degi karo lama degaanka. Isagoo og in ninka gaariga uu kaga faa'iideysanayo gaari kale inuusan helaynin Virgil. Kadib Virgil waxa uu dareemayaa kulayl aad u daran, wuxuuna ka codsanayaa ninka gaariga qaboojiyaha inuu shido. Laakiin darawalka ayaa u sheegaya Virgil inuusan shidaynin qaboojiyaha maadaama uu gaarigu istaagayo haddii uu shido qaboojiyaha oo uu xumaanayo. Haddii gaariga uu xumaadana ayna helaynin cid saacida bartamaha lama degaanka. Kadib taayirka gaariga ayaa qarxaya, waxayna bedelayaan taayirka. Virgil ayaa si degdeg ah u gaadhaya taayirka oo bedelaya. Kadib waxaa qarxaya taayirka gaariga, waxaana isku dayaya inuu bedelo taayirka gaariga Virgil, waayo waxa uu rabo inuu si degdeg u gaadho meesha uu rabo. Isaga oo bedelaya taayirka gaariga waxa uu arkayaa yey cunaya yey kale oo dhaawac ah. Wuxuuna isku dayayaa inuu difaaco yeyga dhaawaca ah, laakiin darawalka ayaa u imaanaya oo dilaya yeyga dhaawaca ah. Virgil aad ayuu uga xanaaqay ficilka noocaas ah, waxayna sii wadanayaan safarkoodii gaariga. Kadib habeenkii markay gaadho ayay teendho xidhanayaan ilaa inta subaxa ka gaadhayso, waxayna shidanayaan dab si uuna yeygu u soo weerarin. Kadib darawalka ayaa weydiinaya Virgil waxa uu ku dhaliyay inuu u soo safro meeshan cidlada lama degaanka ah. Wuxuuna u sheegayaa Virgil darawalka inaysan dhulkiisa ka jirin wax shaqo ah, noloshuna aad ugu adkaatay. Uuna arkay warqad xayeysiin oo shirkad halkan ka shaqaysa leedahay, uuna go'aansaday inuu halkaa u safro. Wuxuuna darawalka ku odhanayaa shaqada noocaas oo kale ah ma awoodaan dadka oo dhan, mana laha lacago fara badan. Xayeysiimaha dhammaantoodna ma aha run. Kadib markay gaadho subaxdii waa ay baxayaan, laakiin markan darawalka aad ayuu u daalan yahay waxaana gaariga kaxaynaya Virgil. Laakiin isagoo gaariga wada ayuu dareemaya kulayl aad u daran, aanu xamili karin. Wuxuuna shidayaa qaboojiyihii uu uga digay darawalku maadaama uu darawalku hurdo. Laakiin gaariga ayaa xumaanaya oo istaagaya sidii uu sheegay darawalku. Darawalkii ayaa toosaya isaguna oo aad u xanaaqsan. Wuxuuna ku odhanaya hore ayaan kaaga digay inaad shidin qaboojiyaha. Iminka waxaan joognaa bartamaha saxaraha, mana jirto qof ina saacidaya. Kadib darawalka ayaa isku dayaya inuu hagaajiyo gaariga. Virgilna waxa uu yara fogaanaya xoogaa si uu soo guto xaajadiisa, laakiin waxa uu arkaya wax ka dhalaalaya saxaraha bartankiisa. Hore ayuu ugu soconayaa, waxa uuna arkaya inuu yahay dahab. Kadib waxa uu wacayaa darawalka, wuxuuna ku odhanaya halkan waxa yaala dahab, laakiin darawalka ayaa ku odhanaya waxan ma aha dahab. Kadib Virgil ayaa odhanaya waa dahab. Darawalka ayaa wuxuu odhanaya waan shidayaa, haddii uu yahay dhagax wuu madoobaanayaa, haddii uu yahay dahabna sidiisa ayuu sii ahaanayaa. Kadib darawalka ayaa shidaya dhagaxa, laakiin sidiisa ayuu sii ahaanayaa. Waxayna ogaanayaan inuu yahay dahab dhab ah, waxayna bilaabayaan inay qodaan, laakiin waxay arkayaan inuu aad u badan yahay oo dhagax waaweyn uu yahay dahabkan oo ayna saari karin. Waxay isku dayayaan inay soo jiidaan, laakiin ma awoodaan. Kadib waxay isku dayayaan inay gaariga ku soo jiidaan, laakiin xadhigga ayaa go'aya maadaama dhagaxu aad u weyn yahay. Intaas kadib waxay soo gurayaan qoryo si ay u shidaan dab si ayna yeygu u soo weerarin habeenkii. Waxayna shidayaan dabkii iyagoo faraxsan maadaama ay dahab heleen oo qani ay noqonayaan maalmaha soo socda. Kadib habeenkii iyagoo sheekaysanaya waxa uu darawalka ku odhanayaa Virgil waa in midkeen uu aado magaalka ugu dhow si uu u soo kaxeeyo cagaf yar oo aan ku qodno dahabka. Wuxuuna ku odhanayaa darawalka Virgil waxaan aqaanaa nin leh cagaf yar oo saaxiibkay ah, kaxayso gaariga oo aad magaalada ka soo qaad cagafta ninka aan saaxiibka nahay si aan ugu qodno dahabka, waayo adigu ma xamili kartid ku noolaanshiyaha lama degaanka maadaama ay tahay markii kugu horreysay aad halkan timaado. Laakiin Virgil ayaa ku odhanaya maya, adigu soo qaad, aniga ayaa halkan sii joogaya, ha ii warwarin aniga, waan adkaysan karayaa inta aad maqan tahay, maadaama uuna ku kalsoonayn darawalka. Kadib markii ay gaadhay subaxdii waxa uu darawalka siiyey Virgil biyo iyo xoogaa cunno ah iyo moobeel uu ku sii sugo maalmaha uu maqan yahay, isna uu dahabka u sii ilaaliyo. Kadib waa uu baxayaa darawalkii, halka Virgil uu ku hadhayo meesha, wuxuuna isku dayayaa inuu dahabka ku qariyo ciid. Wuxuuna geed u dhowaa ku xidhanayaa maradii si qorraxda uga galo, wuxuuna soo gurayaa qoryo si habeenkii u shido. Laakiin maalmaha soo socda waxay noqon doonaan maalmo ku adag Virgil. Kadib habeenkii ayaa la gaadhayaa. Virgil waxa uu maqlayaa codka yeyda isagoo aad u cabsanaya. Kadib waxay gaadhaysaa subaxdii dambe iyadoo qorraxda aad u kulushahay lama degaanka, waxaana ka muuqda Virgil daal aad u fara badan. Wuxuuna maqlayaa
taleefanka oo dhacaya wuxuu u soo ordaya xagga telefoonka laakiin marka uu soo gaadho ayuu khadku go'ayaa kadib wuxuu ku noqonayaa dahabka isagoo dhagax dusha ka saaraya mid kasta oo dahabka ka mid ah kadib wuxuu isku dayayaa inuu eego baaxadda lamadegaanka kadib wuxuu arkayaa diyaarad burbur ah oo meesha taalla wuxuuna aadayaa xaggeeda isagoo galaya kuna dhex dareemaya xasilooni wuxuuna ka qaadanayaa qayb ka mid ah jajabka iyo kursigii si uga samaysto teendho wuxuuna ka samaystay teendho kadib isagoo fadhiya oo ka fikiraya mustaqbalka marka uu noqdo qani ayuu qabanayaa xagga dahabka waxa uuna ku garaacayaa dhagax wuxuuna u soo jabayaa qayb ka mid ah dahabka kadib waxaa ku soo dhacaya taleefanka waxa uuna la hadlayaa darawalkii isagoo ku odhanaya gaadhigii ayaa iga xumaaday waxaan ku soo gaadhayaa 2 maalin kadib Virgil waxa uu u sheegayaa inuu ka jabsaday in ka mid ah dahabkii laakiin darawalka wuxuu ku odhanayaa intaas waxba ma tarayso joog inta aan ku imaanayo aniga kadib Virgil waxa uu arkayaa gaari maraya saxaraha meel u dhow isaga waxa uu ku fikirayaa inuu raaco gaariga inta uu qaato dahabkii uu jabsaday laakiin waxa damac ka gelaya dahabka kale ee faraha badan wuuna iska joogayaa kadib habeenkii waxa soo weeraraya Virgil yeygii laakiin qori dab ah ayuu qaadanayaa oo isaga celinaya yeyga wuxuuna u soo jeedaya habeenkii oo dhan si uu isaga ilaaliyo yeyga markii gaadho subaxdii ayuu galayaa teendhada iyadoo wejigiisa oo dhan uu gubtay kulaylka saxaraha dartii cuntadii iyo biyahana uu ka dhammaan rabo kadib wuxuu arkayaa mas yar oo xaggiisa u soo socda kadib wuxuu isku dayay inuu dilo si uu u cuno laakiin intii u hartay biyaha ayaa ka qubanaya kadib wuxuu ku laabanayaa diyaaraddii si uu wax un uga helo laakiin wuxuu arkayaa qof xaggiisa u soo socda wuxuuna ka gelayaa diyaaradda laakiin qofkii ayaa u imaanaya oo ah gabadh oo weydiinaysa haddii uu rabo kaalmo laakiin wuxuu u sheegayaa inuunan rabin kaalmo gabadha waxay u dhaqaaqaysaa xagga dahabka wuuna ka daba baxayaa si uu uga ilaaliyo dahabka kadib waxay ku odhanaysaa meeday teendhadii aad deganayd wuxuu ku odhanayaa waa diyaaraddan burburka ah ee adigu qaado haddii aad rabto kadib wuxuu aadayaa xagga dahabka waxaana soo daba soconaysaa gabadhii waxay ku odhanaysaa ma waxaad tahay qof dilaa ah oo u soo baxsaday dhulkan sidee ku soo gaadhay meeshan saxaraha cidlada ah kadib wuxuu ku odhanayaa shirkad ayaan u socday si aan uga shaqeeyo laakiin dhibaato igu dhacday darteed ayaan u joogaa halkan laakiin gabadha mayna rumaysan Virgil waxayna u socotay xagga dahabka Virgilna waa uu soo daba socday waxay gaadhayeen teendhadii uu deganaa Virgil kadib waxay ka doodayaan sida uu meesha ku soo gaadhay laakiin Virgil ayaa ku odhanaya maxaad iga rabtaa aniga kadib xoogaa dood ah Virgil waxa uu dilayaa gabadha markay dhimatay kadib wuxuu goosanayaa inuu aaso wuxuu qodayaa god intaanu aasin ka hor wuxuu ka qaadanayaa wixii u muhiim ah oo dhan kadib uu aasayaa intaas kadib wuxuu arkaya yeydii oo qodaysa godkii uu ku aasay meydka say ula baxaan meydka laakiin waa uu ka erayayaa wuuna soo saarayaa meydka wuuna gubayaa wuuna aasayaa mar kale wuuna seexanayaa habeenkii subaxdii ayuu wacayaa darawalka wuxuuna u sheegayaa inuu soo socdo intaas kadib wuxuu soo gurayaa qoryo laakiin waxaa soo dhacaysa dabayl xooggan oo duufaan ah wuuna suuxayaa wuxuuna toosayaa mar dambe isagoo ciidda hoosteeda ku aasan oo qori weyn caloosha uu ka galay kadib wuxuu raadinayaa dahabkii yaraa ee uu jabsaday wuuna helayaa laakiin mar kale ayaa kulaylka rafaadka dartii la suuxayaa laakiin muddo kadib ayuu soo naaxayaa wuxuuna gubayaa caloosha meeshii uu qorigu ka galay si uu uga baaba'o xanuunka laakiin kulaylka saxaraha iyo dhibta ayuu la dhacayaa mar kale markuu soo naaxo kadib wuxuu arkayaa gabadhii uu dilay oo dul taagan oo biyo siinaysa wuxuuna u malaynayaa dhalanteed inay tahay intaas kadib wuxuu la hadlayaa darawalkii oo u sheegaya inuu soo socdo laakiin mar kale ayay gabadhii u imaanaysaa waxayna ku odhanaysaa ma rabtaa biyo iyo cunno waxayna weydiinaysaa gabadhii uu dilay oo ahayd iyada walaasheed oo mataanteed ah ugu dambayn wuu suuxayaa Virgil mar kale waxaana cunaya markan yeyga kadib markii uu jilcay Virgil laakiin darawalka uu arkayay wuxuuna rabay inuu dhinto si uu keligii u qaato dahabka markuu dhintay Virgil ayeydii ka tagtay meesha ayuu bilaabayaa inuu soo dhaqaaqo darawalkii laakiin markuu yimaado meeshii dahabka waxa ku dhacaya waran ay soo tuurtay gabadhii dhimatay walaasheed labadii nin way dhinteen waxaana dilay damacooda ay rabeen dahabka inuu qaato mid iyaga ka mid ah halkaas ayuu ku soo dhammaaday filimka